waqtiga iyo akhriska. Waa maxay xiriirka ka dhexeeya akhriska iyo waqtiga? Waqtigu waa mid ka mid ah awoodaha ugu muhiimsan ee bini'aadamku leeyahay, waana albaabka aqoonta iyo furaha horumarka. Waqtiguna waa hantida ugu qaalisan ee qof walba haysto, mana jiro qof ka baxsan saamaynta waqtiga. Markii labadan eray la isu geeyo, waxaa soo baxaya xiriir aad u dhow, kaasoo muhiim u ah nolosha qofka, horumarkiisa iyo fahamka adduunka uu ku nool yahay. Xiriirka ka dhexeeya akhriska iyo waqtiga waa mid labada dhinac is saameeya. Akhriska ayaa saameeya sida waqtiga loo maamulo, halka waqtiguna uu go'aamiyo talada iyo joogteynta akhriska. Waqtiga ayaa saldhig u ah akhriska. Akhris kasta wuxuu u baahan yahay waqti. Haddii qofka uusan waqti u guulin akhriska, aqoontu kuma kordhayso. Dadka wax akhriya ee guuleysta waa kuwa si nidaamsan u qorsheeyay waqtigooda. Akhriskuna waxay ka dhigaan qayb ka mid ah nolol maalmeedkooda oo joogtada ah. Tusaale ahaan, hogaamiyayaasha, culimada iyo qorayaasha guuleysta waxay u isticmaalaan waqtigooda si ay ku dheehan tahay xikmad, iyagoo maalin kasta wax akhriya xitaa haddii ay daalan yihiin. Adiga ay daawanaya xitaa haddii aad damacdo inaad wax akhriso, waxaad u baahan tahay waqti. Sidaa darteed, akhriska ayaa maalgelin u ah waqtiga. Akhrisku ma aha khasaaro waqti, laakiin waa maalgelinta waqtiga. Qofkii waqtigiisa u huraa akhris faa'iido leh wuxuu mustaqbalka ka helayaa natiijo weyn, aqoon, fikir furan iyo faham bulsho. Tusaale ahaan, maalintii haddii aad fadhiisato oo aad soo xulato buugaagtaada kan aad ugu danaynayso, kadibna aad akhriso 30 daqiiqo oo kaliya, bishii waxaad akhrisay 900 daqiiqo oo u dhiganta 15 saacadood. Sanadkii waxaad akhrisay buugaag fara badan oo noloshaada bedeli kara. Sidaa darteed, waqti yar oo akhris aad u qoondeysaa wuxuu isu bedeli karaa hantida ugu weyn ee noloshaada. Akhrisku wuxuu barayaa qofka qiimaha uu leeyahay waqtiga. Markuu qofku barto akhriska joogtada ah, wuxuu fahmayaa sida uu waqtigu u qiimo badan yahay. Buugaagta wanaagsan waxay xoojiyaan fahamka inuu waqtigu yahay nolol. Buug kasta oo akhris ah wuxuu qofku barayaa in la qorsheeyo, in la kala hormariyo howlaha muhiimka ah, iyo in la ogaado in daqiiqad kasta ay qiimo leedahay. Sidaa darteed, akhriska wuxuu qofka ka dhigayaa mid waqtigiisa si xikmad leh u isticmaalo. Waqtiga go'an ee akhriska. Dadka guuleysta waxay leeyihiin waqti go'an oo akhris ah. Qof wuxuu akhriyaa subax kasta 30 daqiiqo ka hor shaqada, qof kale wuxuu akhriyaa fiidkii 1 saac ka hor hurdada. Marka jadwalkaasi aad raacdo, maskaxdu waa ay la qabsataa. Akhriskuna wuxuu noqdaa caado nololeed. Markaad adigu samaysato jadwal joogto oo akhris ah, waqtigu wuxuu noqdaa mid faa'iido kuu leh. Ugu dambeyn, xiriirka ka dhexeeya akhriska iyo waqtiga waa mid aan la kala saari karin. Midba wuxuu taageeraa midka kale. Waqtigu waa saldhigga akhriska, akhriskuna waa ilaalinta waqtiga. Qofkii waqtigiisa u huraa akhris faa'iido leh wuxuu noqdaa mid noloshiisa si wanaagsan u maamula, fahamkiisana kor buu u kacaa. Marka haddii aad rabto inaad ka faa'iidaysato waqtigaaga, akhri. Haddii aad rabto inaad noqoto akhriste wanaagsan, ixtiraam waqtigaaga.